runtii sharaf weyn iyo farxad ayay inoo tahay inaan maanta ka soo qayb galno bandhigan safarka iyo dalxiiska Soomaaliyeed oo ay soo bandhigeen hay'ad Soomaaliyeed runtii waxa halkan lagu soo bandhigay ahmiyad weyn oo ballaaran ayay u leedahay dalkeena waa mid runtii aan isdhihi karo waa tallaabo runtii hore loo qaaday waa sida la sheegay waa dhinacii kale ee Soomaaliya oo maanta curatay the other side of Somalia waxa la yiraahdo dalkeena haddaan dib u milicsano waxa lagu suntay waxyaabo badan oo uusan u qalmin laakiin dhalinyarada halkan joogta dhammaantiin waxaan idin xasuusinaynaa dalkeenu meesha uu ka yimid iyo waxa uu ahaan jiray dalkeenu wuxuu ahaa dalka ugu nabdoon Afrika horta taas inaad ogaataan la idinka rabaa dhammaantiin wuxuu ahaa dalka ugu quruxda badan Soomaaliya adduunka Afrika runtii waan ka tilmaanayn dalkeena khayraad fara badan ayaa Ilaahay ku manaystay oo meel walba aan laga helin oo hadday noqon lahayd bad iyo hadday noqon lahayd xoolo iyo hadday noqon lahayd beer iyo hadday noqon lahayd macdan iyo shidaal runtii waa dal Ilaahay u nimceeyay waa dad Ilaahay ku manaystay dadkeenuna waxay ahaayeen berisamaadkii dad runtii kaalin weyn oo mug leh ka soo qaatay xornimada Afrika dad inta toodi ayagu ay qabsadeen runtii Afrika wax weyn u taray caalamka wax weyn u taray Latin America wax weyn u taray Aasiya wax weyn u taray runtii nasiib darro dhowr iyo 20 sano ayaa dalkeenu u burbursanaa burburkaasna meel kale noogama imaan annaga ayaa runtii burburinay waa masiibo runtii waxaa laakiin maanta nasiib wanaaga oo Ilaahay mahadiisa in geedi socodkii nabadda geedi socodkii alxamdulillah iyo horumarka geedi socodkii loo dhaqaaqayay dhinaca wanaagsan oo laga imaanayay dhinaca xun runtii uu noo bilaabmay marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa qabaqaabiyaashii noo soo qabaqaabiyay bandhigan safarka iyo duulimaadka waxayna tusaysaa runtii waxaan leenahay Soomaaliya runtii tartan ayaa dadka Soomaaliyeed ay ku jiraan gaar ahaan waxaan mahad ballaaran u celinayaa oo tartankaas hormuudka ah ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada markaan ka hadlaayo waa kuwa safarka ka shaqeeya waa kuwa dalxiiska ka shaqeeya kuwaas ayaa ugu horeeya runtii ganacsatada ka shaqeysa safarka haddii aan xasuusano ama kuwa dalxiiskaba ka shaqeeya meeshii laga yimid runtii waxay u soo adeegeen dhibaatooyin badan ayay runtii ku soo sabreen dalkan waa u soo dhabar adeegeen runtii waxaan u soo joognay ayagoo ku shaqeynayo xaalado aad u adag xaalado khatar leh xaalado aan qof bini aadam ah uusan ku shaqeyn karin marka waxaan dhihi lahaa waa naftood hurayaal waxay naftood hurayaal ku yihiin runtii shirkadaha lagu shaqeynayo waxay ahaayeen kuwo aan nafta bini aadamka lagu aamini karin oo runtii aad marwalba marka u dambaysa haba sii casriyoobayeen laakiin waxa weeye ayaga ayaa bilaabay in dalkan markii dhibaatadu ay ka dhacday oo meel walba in la isaga gudbo gudihiisana laga isaga gudbo caalamkana lagu xirmo intaba
runtii garoomada lagu shaqeynayo waxay ahaayeen garoomo aan u qalmin oo waad garan kartaan meelaha lagu shaqeynayo in garoonkeenina aan xirnay weynaay oo caalami ahaay runtii dekedeyni aan xirnay meelaha lagu shaqeynayo jidadku ay ahaayeen jidad aan u qalmin oo rafa oo runtii aad u dhibaatooyin leh nabadgelyadu inay aad u xumeed oo wadooyinka aan la mari karin marka 15 sano ka hor duruufahaas ayaa lagu shaqeynaya laakiin nasiib wanaag maanta meeshaan marayno waa meel yididiila leh waxaan mahad ballaaran u celinayaa dadkii halkaas ka keenay ee meesha aan maanta joognona soo gaarsiiyey waxaan marka rabnaa oo isweydiin leh ganacsatada dhammaanteed waxay hormood u yihiin oo ay kaalin mugle ka soo qaateen in dalkeennu oo runtii alxamdulilaahi uu helo adeegyadii loo baahnaa in caalamka intiisa kale ay nagu xiraan marka ganacsatadu maanta waxay marayaan oo alxamdulilaahi meel fiican waxaan rajaynayaa dalxiiska iyo duulimaadka aan halkan ku aragnay iyo meelaha wanaagsan oo bilicda leh oo halkaana la ku tusay runtii inaan uga sii dhowaano inaan horumar intaan ka ballaaran aan ku tallaabsanno mustaqbalka dhow waxyaabaha yididiida leh ma aha keliya bandhigan waxaad xasuusataan bishii la soo dhaafay maxaa ka dhacay bal isweydii maxaa ka dhacay magaalada muqdisho degtu waxay maqashaa keliya waxa xun laakiin imisa maxalli dhacdo oo wanaagsan ayaa halkan ka dhacay sahal imisa ka dhacday halka maanta xarunta aan joogno imisa munaasabadood ama bandhig oo aan isleenahay waxbay tarayaan dadka Soomaaliyeed oo inay dhinaca wanaagsan u socdaan oo qayb ka qaadanaya dhinaca wanaagsan maxaa dhacay haddaan dib u xasuusan ama meelo kale oo dalka kamid ah maxaa ka dhacay waxyaabaha haddaan dib u xasuusiyo waxaa kamid ah in halkan lagu qabtay bandhig carwo ama bandhig ganacsatada beeraha dhinaca Turkiga iyo Soomaaliya ay ku midoobeen oo runtii lagu soo bandhigay wax soo saarka Soomaaliyeed waxaa halkan ku soo dhiiray dalkeena oo yimid ganacsato Talyaani ah oo runtii halkan u yimid Soomaaliya u yimid inay la shirkoobaan ama la ganacsatada Soomaaliyeed intaba waxaa la furay ogtihiin dekadii qalalneed oo halkan meel u dhow aan ka fogeyn oo aan ka furnay oo ganacsi waxaa ka dhoofay halkan dalkeena shixnado badan oo muus oo u dhoofay qaarna aan Sacuudiga u dhoofinay kuwana dalka Turkiga ay aadeen marka runtii intaas oo dhan waxaynu tusayaan in dalkeenu uu soo kabsanayo in dalkeenu alxamdulillah dhinac wanaagsan uu soo jeesanayo marka adeegyada noocaana oo ama dalxiisku inoo haayo ama duulimadeeda inoo haayo waa kuwo laga maarmaan ah anaga ka ganacsad ahaan ama ka wasaarad ahaan marka maxaa la gudboon iyo ka dawlad ahaan ama ka baarlamaan ahaan inta maxaa la gudboon waxaa la gudboon in ganacsiga Soomaaliya la fududeeyo taasna waa waxaan u taaganahay wasaaradaha ku shaqada leh dhamaantood iyo wasaaradda ganacsiga oo runtii mas'uulka ah ganacsatada Soomaaliyeed ama haday noqon lahayd sidii suuq loogu raadi lahaa ama haday noqon lahayd sidii loo diiwaan gelin lahaa ama shuruucdii lagu dhaqi lahaa intaba waxay ugu jirtaa runtii ama carwooyinka nooca iyo bandhigyada noocaana sidii ay u suurtageli lahaayeen marka wasaaraddu waxay diyaar u tahay runtii inay sahasho ganacsatada u fududayso sharciyada laga maarmaanka ah dalka u ah ay ka shaqayso waxaad xasuusatiin in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhawaan saxiixay sharcigii shirkadaha Soomaaliyeed kaasoo isleeyahay wuxuu albaabada u furayaa ganacsigeena haday noqon lahayd gudaha iyo haday noqon lahayd wuxuu shirkadaha u fududeynayaa qaabkii isku diiwaan gelin lahaayeen ismaamulkoodii gudaha iyo sidii aan ula jaan qaadi lahayn ganacsiga adduunka waxaa kaloo shalay baarlamaanka ama golaha shacabku uu ansixiyay
heshiis aan la galnay hay-adda la yiraahdo miga oo la yiraahdo hay-adda damaanadda maalgashiga darafyada badan ama multilateral investment guarantee agency taasina waxay u sahlaysaa ganacsatada ama shirkadaha ajnabiga ah ee adduunka inay la ganacsataan ganacsatada Soomaaliyeed inay alxamdulillah ay ku soo dhiiradaan inay dalkeena maal gashadaan marka isagoo arintaasina waa yidiilo kale waa guul kale oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay runtii sanadkii tagay ee 2019 wuxuu ahaa sanad wax badan ay u qabsoomeen ganacsiga Soomaaliyeed isla markaana dalka laga dhoofiyay badeecado fara badan sidoo kale waxa sanadkaas sida doctor duulimaad ka bilaabay shirkado caalamiya sida tan Qatar Uganda tan Ethiopian Air Turkiga oo hore Soomaaliya uga shaqeynayay marka taasina waxay muujinaysaa in dalkeenu uu soo kabanayo